ganacsatada iyo waxaan halkan ka siinayaa gaar ahaan dhammaan dhalinyarada guddoomiyaasha gobolka Banaadir iyo dhalinyarada ka soo qayb gashay kulligiin waa salaanteen talanka bacdi waxaan la soconaa in maanta wadanku horumar weyn oo ku tallaabsaday halgankii dheer ee dowladda ay qaaday ee ahaa halgankii badweynta Hindiya waxaan arkaynaa in dowladdeena macaan inay horumar ka gaartay in goobo walba ee shabaabka ay ku jireen waxaan arkaynaa in laga bixiyey ee laga saaray ilaa meeshii ugu xooga badneed ee baraawe ee maanta dowladda gacanta ay ku hesho ilaa dhulkan dhanna lasoo wada qabsaday laakiin run ahaantii marka cadowga uu jabo wuxuu noqonayaa naflacaari qabka markuu naflacaari yahay qalbuu iska tuurayaa waxaan rabnaa inaan baaq aan u dirno amba aan cambaareyno falalka guracan ee maalmahan ee fulinimada ah ee soo cusboonaaday dib u soo cusboonaaday waan arkaynaa laba qarax ayaa shalay dhacay nasiib daro waxaa lagu dilay labadaas qarax badankooda waxay ahaayeen dhalinyari ahaayeen waxaa waaye wadankan waxaa waaye ninkan igula dagaalamaya ininka ayaa madaxdii burito ah ininka ayaa dadkii wadankan hogaamin lahaa يعني وأجينا إن شبابك أي دجاج آد كيقولنا إن دجاجنا مرنا مرن هبابيان مسكحة قلبان قرح واستعمالان مرنا دتي وحبرها دجاجدي يميله لسه إيمانا يبلع لي مجالدي إن الدجاجين يكون بينايان لكن وحنا لنا هاي تامنا عسكرينيش مرها ديب مقدسة يجور والله يودينا والبلغاسار adigoo oo sameynay dagaalka aan dhahay foosh xumay guracaan oo ahid aan ran ku dhufo ka dhaqa taana nabadgelyada iyo booliiska ayaa arrintaasi waa maqlisa wax xal ay ka dhahayeen ayaga dad gelin doono waxaan rajaynaynaa mar dambe inay dhici doono mana cabsi gelin doontana waxa awsan ku kacdan shalay haddii aan soo noqono qodobkeena kale oo ah yani qaabkee doodan loo hadlayo hadafka in la sameeyo run ahaantii waxaan dareemi karnaa in maanta horumar uu imaaday dhinaca degmooyinka dhalinyarada gobolka Banaadir maxaa yeelay maanta waxay rabaan in ku fikirayaan kol haddii shabaabkii laga saaray magaaladii waa inaynu samaysanaa hadafka muxuu yahay waa gool waaye goolka aaramay in aad gaartaan run ahaantii waa arrin lagu farxo maxaa yeelay waxaan ka tashanaysaan amba aad ku dhaqaaqaysaan waxyaabaha aad rabtaan inaad ka qabataan sida waxyaabaha shaloo kala dhacay inaad ka hortagtaan ayaa loo baahan yahay runtii marka horta uu waa inaan isweydiino maxuu hadaf ku imaa horta in la sameeyo waxaa loo baahan yahay wax dhib baa jiro dhibkaas in laga baxo la gaaro barwaaqo ayaa loo baahan yahay maxaa marka dhici karta waxaa loo baahan ugu horeyntii inuu imaado waxa la dhahay change waa inuu isbedel imaada markaad yacni rabtaan gool gaarto waa inuu isbedeshaa isbedelkaasiti waxaa la rabaa kow inuu ka bilaabo inaanan lagu murugoonin dadkii waa ujeedaan waa la saaray complain iyo cabasho Soomaali inaan ka baxan oo qofka shakhsiyan horta uu isku bedelaa maxaan rabaa inaan sameeyo sababta waxaan u sameynayaa maxay maxaan rabaa inaan gaaro waa inuu horta isbedel oo imaada waa inuu qofkii isweydiiyaa war shalay harkee jiray maanta intaan joogaa biri intaan u socdaa haddii saddexdaas oo helo qofka bilaadanka ah isbedelku uu gaari karaa okay goolka marka la sameynayo waxaa loo baahan yahay تكنيكيا أو مستمعنا مرة أياجر وأنا هاد قف أوصلها decision وأنا قان جارا وحنا أو أوصلنا أو دقائق وأنا قان أو كجارا كبعدنا أوص قراء ووحنا أو أوصلنا هاي بكيف الآدم بيننا هاي وقرأتي مركز كأجار إنسان وحدون إنسان عند لحظة قدر إن كشق إنسان سدح بالوقت رصاص عطل سياد يعني أمن يسكو حمل هذا سي يعني هرمك وجار هذا سي أو لو شقيل هاي نودي سي دجمدي اسكو حلو سمانها ستر قبل سمانها وقضب أو لحقة مكوا إن هرت الشيء سمجارة لا نقرأ كبعد ما إما على أكشن بلان أو لسميات تلاوة لقاعدة ملو بعنا إن نسكفرينه ملو بعنا إن نسكدون شراب كوب بحد وعدو مر والبو عدو بوكو مقيم حتى الناس قمت السماء إن نسكشين لو بعنا الجرر حدينا رشة عدو آدم برنامج نلاش كذا برنامج وإن أنا بس برنامجنا وإن أوتشنا عدو عن أوتشنا معناه والقوة مال عن أسرعنا day by day ماتر my ماترز عن أسرنا سنة بلوس لح بلوس لا بلوس سنة عن بلان أسرنا سنة ممكن حرمنا إن أسكول جانو إن يعني وحارم وتشيشن عليه معنا وإن أنا إسبدلنا مركا قف الشخص هو إسبدله سوساسي هو إسبدله يعني لو مشغول أوكي ما حقول له بهاي
in laga ogaadaa sidee laysku bedelayaa laisweydiiya qaabkii isku bedeli karnaa waxaa isku bedeli kartaa su-aalin baa isweydiinaysaa yacni qaladkaaga shalay ahaa ayaad fiirinaysaa yacni learn from your experience yani inaad wax ku barataa qaladkii aad samaysay kaan baa wax ku baran kartaa waxaa kaloo wax ka baran kartaa qaladka qofka kale uu sameeyo oo dadka kale ah amba horumarka ay sameeyeen ayaad iyadana wax ku baran kartaa laakiin mid baa jirto waxaa kaloo jirta qofka kale marmarka qaarkood inuu wax qaldan laga barto ee dhici karto oo yacni taa inaad iska ilaaliso waxaa kaloo loo baahan yahay marka guul aad samaynayso waxaad dhici karto inaan la kulanno dad cadow ku ah waxa horumarka aad gaarayso run ahaantii maanta waxaa laga yaabaa dhalinyarada daas weydiisaan shala markay xaafadaha iska joogteen oo dad normaal iska heedeen cadow ma lahaa jirin balse maanta markay guddoomiyaal naqateen amba ku-xigeen aa naqateen amba waaxyo aad kala samaysteen nin saaxiibkaa ah oo cabsi ka qabo oo yacni qof walba cabsi baa ku xiran horumarka inuu gaaro wuu rabaa laakiin inaad adigu ka tagto ma rabiyo cabsi ka qalab ayaa jira marka waxaa loo baahan dadka inaad ka dheeraato negative-ka ah oo yacni mar walba ku dhahay waxaa mala samayn karo waa ogtihiin markaan waddankan shaqad ka bilaabayna shabaabka aan la dagaalamaynin degmada boondheera joogeen dadaad dhahay ma waalintiin ma intaad dibad ka imaadaa shabaab aan la dagaalay horniba bax qabowgaaga u noqo waa waalintaa dowladda waxaa wax ka qaadi weyso waxaan sameyn wacdigelin baan sameyna dadka way sharxeen marka haddii adigu aad dhaqaaq samayso oo hadafka aad ku dhacdo dadka waa soo jiidan karaysaa marka waxaa loo baahan inaad yacni ka dheeraato noloshaada aad ka bixiso dadka ah negative-ka ee kuu diidaya mar walbaba inaad horumarka aad gaarto kuu diidaya ayana waxaa loo baahan yahay in aad ka dheerato marka waxaa go-aankeenu ahaa learn from your experience and learn from other people inaad gacan dad kale ayagana wax aad ka baran maxaa kaloo loo baahan yahay shabaabaa la dagaalamayna waxaa kaloo loo baahan inaad wax heshaa yaqiin waxaan aad la dagaalaysa horta maxay yihiin inaad yani ogaataa ma wax dibadda laga keenaa ma wax dhaqan keenaa maxay yihiin aad ogaataa dhibaatada waa ujeeda waxaa kaloo loo baahan yahay inaad haddana aada heshaa wax aad ku dayarto oo kuu noqdo role model waxaan doonayaa inaan noqdo gudoomiyaha kala raba inaan noqdo waxaan doonayaa gudoomiyaha shaqsadaan gudoomiyaha inaan gudoomiye gobolada aan noqdo waxaa kaloo loo baahan inaad ku dayarto yani dadkii wax walba soomaali anaga ma bilaaweyno waxaan hore qof kasta horumar buu soo gaar qofka waxaa ku dayi kartaan dhalinyaradii SYL why not anaga SYL oo kale aan naqan la'anahay why not inaa haddana heshaa waxaa wanaagan aad samaynayso wax kugu xambaaraya amba aad ku dayanayso run ahaantii waxaad dareemi karnaa meeqa qafood ayaa maanta qaraxyadii ku dhintay meeqa qafood ayaa dagaalamaya dhinteen meeqa qafood ayaa gurigooda joog ayaa dhinteen wax la sheegaya ma aragti balse haddaad taariikh aad ka tagto oo aad ummadan inaad badbaadiso aad isku daydo warkoreys waa la dhimanaya dhimashadu waa qasab kullu nafsun daaqatumud ayuu anagu musuna beenana marka dhimatay taariikh inaa la reebo waa wax loo baahan yahay waa ujeedaa maanta SYL taariikhdooda ma la ilaabi kara maaha milyanaa gadaashoo dhintay milyanasa hortooda dhintay yaa yaqaana meesha ku dambeeyaan yaa og maxaa yeelay noloshooda waxba maysan ka bedelin marka waxaan u baahannahay inaan nolosheena waxaan ku bedelno oo aan guul aasamsan waxaan kaloo gaartigaa inaan afar qodob ayaan rabaa inaan ilaaga tago oo aan arrimaha hadda aan ka hadlayno guulkii hadafka aan gaarayn aan ku gaarno horta qofku waxaa waa inaan isweydiinaa maxaan isku bedelaynaa maxaan anagu dadaalaynaa maxaa yacni anaga kacaan aan naqanaynaa maxaa dowladdeena u jeclaasanaynaa maxaa waxaan aan u samaynaya maxaa effortkan u gelimaynaa maxaan isugu imaanaynaa maxaa danaheena ugu hadlaynaa waa su-aal qofku inuu isweydiiyaa waxaan maxaan u samaynayaa jawaabtu waa markastoo waxayna tahay wayna maxaad u dadaali la'dahay maxaa u dadaali la'dahay maxaa horumar u sameyn la'dahay maxaa yacni u fadhinaa maxaa u fiirsanaynaa sida aad la socotaan dhibaatada maanta dhacayso waxa samaynayo يعني بقول كيف حتى حال واحد دعاء تصالحان لما قفل يا سنة وحاكبل دفت كلا أو نوادر راكبل لكن حال دفت واحد دفت سنة دبعتله معه دفت في سنة أي دبعتله ده محلو بين أنا جال رواينا تسبق ونا مركو حلو رواينا سودين سؤال محل سمي لا نهاي محل كي لا نهاي محل ده هنا مش كسبنا سؤال شنو استحاد الحتة أو رواينا ياسر وأنا قف شخصينا نودي أنا أما كل جل شخصي ما دام أنا قف قال نودي وده راسمه why not you ما هذا سوق بدل على هاي ما هذا أدوه شخصيا أهم أدوه لا والوقت كان أنا إسكالي ما هذا أنا وأوفرية ما هذا أنا يا وقت كان قهرنا يا بس لو كان في وقت كان جوا أدي على يا رب كم إنه سبب الكائنات
adigaa lagaa rabaa inaad ka dhigisa arrintan adigaa lagaa rabaa inaanu booliiska aanu u dhaafin nabasugidda aan u dhaafin adigaa lagaa rabaa inaad booliiska iyo nabasugidda aad direction aad siiso oo aad la shaqayso waana dhibaatadaasaa jirta qodobkeena ugu dambeey oo ah maxaan oo aan ugu darayno baax maxaan bedeli la'nahay dadka dhibaatada lagu jiro ee yacni welina mara habaabiyey maxaa yeele haddii aan dadkaas aan la bedelin dhibaatada way soconaysaa marka waxaan rabnaa inaan qodobadan aan isweydiino maxaa la isku bedeli la'dahay adigu shaqsaan isku bedeli la'dahay maxaa yacni u bedeli la'nahay dadkaas dhibaatada ka taagan waa qodobkan qaabka loogu xiriiri lahaa marka dhalinyarada waxaan rajeynaynaa inaad yacni aada u faraxsana inaan goolkan aan ka shaqeyno qodobadan aan ka shaqeyno aan cadowgeena aan u tashano oo aan balaayin aan leenahay hadaf aan leenahay shalay waxaa ka imaadeen haddaa xasuusataan waxaan la kulmaan u malayaa 6 qofood idinka naga mid ah oo gobolka joogo idinkoo waxba kala ahay run ahaantii already waa part of progress ku jirta waa nin imaaday gobolka anaa nin imaaday meeshaan nagu arkay waxaan isku imaanaa dhaan siminaaraan sameynay dadaala sameeyey waa sidoo ninkaan u sheegaya cabsi baa sheegaysa maanta cabsidii way dhammaatay al-shabaab waa laga raayay awood ahaan physically waa loo raadiyay waa laga baadiyay awood ahaan waa loo bixiyay laakiin maxay u joogaan as ideology u joogaan aragtidooda weli way joogtaa marka diyaar ma u nahay inaan aragtidooda aan duugnaa oo aan ka shaqeynaa dhibka inuu hahay inaan ka baxno taasaa loo baahay inaan ka shaqeyno waa mahadsantahay. Assalaamu calaykum.